gudoomiye sidee shacabka iyo dhammaan musharaxiinta aad ugu xaqiijin kartaan in doorashadu ay qabsoonto si cadaalad iyo xor ah dadaal badan baa guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka arrintaas ka sameynaya waxaa ugu horeeya in marka hore uu dabro xeeriyo guddiyada ka shaqeynaya dhammaantood oo guddigeena federaalka hirgelinta doorashooyinka iyo kan hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed madax dhaqameedyada ergada wax dooranaysa dadka tartamaya dhammaantood waxaa loo diyaariyey xeer anshax lagu xakameynayo sida ay u dhaqmayaan doorashada inta ay socoto oo aad looga ilaalinayo inaanay marna u muuqanin inta doorashada socoto inay si gaar ah u taageerayaan qaar ka mid ah musharaxiinta ciddii heer anshaxaas ku xadgudubtana dabcan waxaa qabanaya in maaragtay tallaabo laga qaado oo xadgudub ah ay samayso sidoo kaleeto iyadoo laga fikerayo cadaalad inuu ahaado doorashada tan oo uu noqonin wax mugdi iyo isdabamarin badan ay ku jiraan waxaa guddigu uu diyaariyey barnaamij lagu ogolaanayo goobjoogayaal caalami ah iyo kuwa kaleeto oo Soomaali ah kuwaasoo loo sameeyey laftooda xeerar haga oo nidaaminaya sida ay goobjoognimadooda u sameynayaan shaqadooda ugu weyn waxay noqon doontaa in ay indheeyaan oo qiimeeyaan doorashada sida ay u dhacayso warbixinna ka soo saaraan sidoo kaleeto waxa ayana jira oo la siiyey aqoonsi ay kaga qayb galaan si loo ilaaliyo inay tahay doorashadu mid xaq ah oo xor ah oo xalaal ah warbaahinta caalamiga ah iyo midda Soomaaliyeed oo loogu talagalay inay goobaha tagaan si toosan u soo tabiyaan wixii ka dhacay dad Soomaaliyeed ugu dharjiyo marka sidee bay dhammaan hawshan u dhacaysaa doorashadaani waxa weeye sida loo qabanayo dadka Soomaaliyeed wali kama dharagsana waxa weeye heerar kala duwan ayaa loo qorsheeyay inay u dhacdo doorashadan heerarka kala duwan